السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا ندي سلام يا أمد الصوماليات. نبض إيه نحريس كركي نها هاتو. ما أنت واحد سوق لي بل تدبضنو إلى صاحب لي. ويخير كي نصبت دي سوال الحري. مرة هداتكو أبتر سنة يسو غير شخصها. محاد كورن لهاي أرهنتن. inta aanan DNA-da iyo cadeymaha idiin gelin kaliya bal hadda wixii laga yiri iyo cidda tiri ayuun baan doonayaa inaan idiin dul maro ummadda Soomaaliyeed sababtay soo gelisana waxa weeye in la yiraahdo in yaro carbeed ayaa bacda 850 sano qiyaasii ilaa 900 sanadood ayaa laga joogaa shakhsaxaad in yaro Sacuudiga jooga ayaa yiri 1000 sanadood أنا إذن قرنا يا ووجينا صاحلي يضع عنو مركو نولا دي أنا تشرين وحباشي اللي قدنو دي أنا لقى قادنو اللي نتسن دي أنا دي وما أنت وحا أدونك حلقة حالة دو تشوكتو ما أنت عدين دي أنا أدونك أوردني أي كشاقايسو يضع نيشن كستا وأدونك ما أنت كنور وأن دي أنا دو دا أما واحد ليدا كرمسوم ليدا هلو hablo groupka laga hayo waan idin dambaysiinay barahan ku horeysiinaya waxa la inoo soo bandhigay book Allah yarxamo uu qoray Dubbe Cali Yare Allah yarxamo oo abtigay ahaa bookgaas ayaa wax cadeyna la inoo soo helay waxa hadlaya inankiisii Cumar Dubbe Cali Yare oo yiri aabahay bookga ana la qoray ayaan wixii uu yiri waaniga idin soo galiyay Facebook page-kayga eega intii ay yiraahdeen baan halkan wax ka weydiinaya ummadda Soomaaliyeedna ka tusaya yaan hadalka idin ku badin wuxuu yiri Cumar waxaanu ka soo helay taariikhda shaqo saxaaq ee buugan aanu ka qoray abtirsiintiisa meesha la yiraahdo buugga la yiraahdo معجم قبائل العرب معجم قبائل العرب لما أنت نقرأ وأخرني وأجني ميل أو كجتشرو قبيل كهذا صوه الشام بينالانا إيجا بينالي الموران يوم احترام بيجم بدين هذا كصوه الشام وأبوج أيرهذين وانكصوه اللي مجلس أن يكون عليو معجم قبيل العرب قبائل العرب تاسي وبوكا ليروان كسوة اللي وكو وحو عدين ويري أصل كيسي وحو كيمي بقداد سنة كماركو أهاي كسو قورين يضا دقال دعي شن بقول يشن تاريخ دا وحا يستيبو دي بقداد نينك اللي أورنشري هارون رشيد بلاد وحا نيتو سيحال كانا مركا سور دقي ستان وقتك أوردا شي هارون رشيد waxay ahayd 149 buu dhashay wuxuu dhintay 193 kaliya simbali waxa u dhaxeeyay mise sana 308 sanadood ayaa u dhaxeeya taasina waa waqti weeru waan ka soo guuray oo isaga xukumayay markaa isaga xukumayay baqadaad uu xukumayay ayaan ka soo guuray oo awowgiisii saddexaad labaad shaqo saxaaq saddexaad uu ka soo guuray taana bal hadda intaasan ku dhaafaya waa soo gaagaabinaya waxa uu yiri markaan buugga qoray waxaan ula tagnay najlatul abxaasuddin hay'adda la yiraahdo abxaasuddin waa hay'adda diiniga ee Saudi Arabia ma garan karo hay'adda najlatul la yiraahdo abxaasuddin meel ay qabaa'ilka ku baadho oo DNA ku haysato iyo meel ay ku shaqo leedahay oo qabiilooyin ku shaqo leedahay midnaba haba yaraatee waa hay'adda diiniga ee u qaabilsan Sacuudiga tuuri waan ula tagnay waa koob waxaan shahaadana la siiyay yaa bixiye shahaadada yaa bixiye ballinka cadeeyay shaqsaaqee DNA-diisa soo baaray ee dabeetana shahaadada ina siiyay DNA-di oo ku sawirantay DNA-diisu wuxuu yahay iyo halku ka soo helay dabeedna shahaado ina siin kara inanka yare Saudi Arabia jooga ama maxay haytay sidii doonaha loo
haloola xiriiro wixii doonaha lagu yidhaahdo waxaa layna tusay warqad qoran ayaa layna tusay warqadaa qoran bal hadda ninka 1000 sannadood awowgii isagu garanayay ku abtirsanayay inay yaroo Sacuudi Arabiya ku dhashay ayaa shahaado isiinaya oo ii aqoonsaday inankaasi culuun uu leeyahay iyo wax la yiraahdo anthropology iyo archaeology oo soo baaray ma jirtay iyadana intaasaan kaga gudbaya waayahay waxaan soo noqonayaa bal haddaba nimanka ay la sheegtay ee la yiraahdo Binu Hashim ka la yiraahdo Binu Hashim waxa weeyaan waa tafsiirtii Nabi Muhammad ilaahay baa ilaashada laba shuruudood bay leeyihiin baara gala nasabiyada asharaafta la yiraahdo bal gala oo eega shuruudu waa laba min Allah baa laga ilaashadaa way register gareysan yihiin lambar baa meel kasto ay joogaanba ay leeyihiin midabkoodu isma bedelo anaana cadaynteedin haya afkooda iyo luqadooduna isma bedesho ila qurayshi lahjadooda isma bedesho cidii sheegataana way ku dambaabaysaa labadaana waxaan idinka cadaynayaa 3 meelood baa Sacuudi Arabiya marka laga baxo oo dibadda ay cidi ka joogtaan meel waa Suuriya lahjadii bay wali ku hadlaan quraysheed meelina waxa weeyaan Jordan oo xasan bay ku abtirsadaan midabkii iyo lahjadii bay leeyihiin Suudaan qabiil baa ka jooga waa nimanka cadcad ee carabta u eg ee af carabigiina ku hadlaya lahjadii intaas cadayn idinku filan min Allah baa laga ilaaliyaa cidda ka soo jeeda nabigii ka soo jeeda waa la ilaaliyaa nabiga oo aan dhalan ayaa awowgii ayaa ogeydeen markii uu Abraha ku duulay kabcada ee uu gaala ka dhacay iyo sidii uu qisada maxay tahay mucjisada ee lagu siiyay geelisi iyo markii ay biyaha Samsam ku aasteen ee isaga Ilaahay u dilaacay ilaa waxa la ilaalinayay nabiga awowdii baa la soo ilaalinayay ilaa maantana sidii baa loo ilaaliyaa taasina su'aashu waxa weeye waa shuruudda kaliya ku xidhan reer Binu Hashim ku xidhan inay afkooyina ku hadlaan ilaa inta laga rogayo dunida midabkooduna aan isbedelin Suudaan buu isbedeli lahaa waxa maxaa xabad xabasheeda baan guursanay oo nabadashay Suudaan oo aad ogtahay intay kala guursanayeen Afrikaankii deganaa oo nimanka noobiyiinta la oran jiray ay kala guursanayeen iyo Suudaan wali midabkii carbeed bay qabiilkaasi leeyahay waa hal qabiil Suudaan bay ku nool yihiin afkooduna waa lahjadii midabkooduna waa kii taana waxaan kaga baxayaa bal hadda arrintaas inay dambi tahay cid kasta oo sheegata ama ha noqoto daarad ha noqoto ama isaaq ha noqotee cid kasta oo sheegata oo ay afkoodu isbedelay ama colorkoodu isbedelay ma ah reer Binu Hashim waa dambi waxaan asxaan oran lahaa waar ka noqda waa koow intaana daarood u gelin bal hadda ummadda Soomaaliyeed ee daarood leh ee saaq leh ee hawiye leh cid walba gobol kasta leh maanta adduunka oo dhan cid aan la ogeyn ma jirto DNA-deeda hay'adaha idinka qaada aanay oo ka shaqeysto jaamacadu u soo dirtaan dhiigana hay'aduhu idinka qaadayaan waxa u soo dirta jaamacadu waa la baaray meel kasta Soomaalida wax la yiraahdo DNA-deeda seen u naqaano chromosome-ka ama haplogroup-ku waa waxa adduunka lagu yaqaan aan isbedelin 50,000 oo sannadood ay isku bedeshaa waa hadday yiraahdeen waxba iska kaaye bedelay markaan Afrika ka guursanay aabaha la raacayo 50,000 ilaa 60,000 oo sannadood ayaa xarafka koowaad ee DNA-da calaamadda tusaho uu wareega isbedelaa hadduu ba ahaana saataga halka waxaan idinku hayaa daba DNA-dii baan idinku hayaa Soomaalida laga qaaday intaas oo qolo oo culimo ah oo anthropology iyo jaamacadaha culumta ku takhasusay